taliya ku-xigeenka ciidanka booliska degmada Dharkiinle Cabdifitaax Malaaq ayaa ciidsiin u sameeyay qaar ka mid ah carruurta agoonta aan awoodin inay iibsadaan waxay ku ciidaan maalinka ciida. Carruurtan iyo waalidiintooda ayaa laga dheehanayay wajiyadooda farxad aad u badan maadaama aysan horay u ogeyn halka ay ka heli doonaan waxay ku ciidaan maalinka ay faraxsan yihiin carruurta asaagooda. Taliyahu intii uu ku guda jiray ciidsiinta carruurta agoonka ah dadkii uu ciidsiiyay waxaa ka mid ah wiilkani qaba baahiyaha gaarka ah isagoona gurigiisa ugu geeyay dharkii uu xiran lahaa subaxa ciida waxaana wajigiisa ka muuqatay farxad aad u badan. Qaar ka mid ah waalidiinta carruurta agoonta ah ayaa u mahad celiyay taliyaha iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ciidsiintani loo sameeyay awlaadooda. Bismillaah assalaamu calaykum waxaa mahad celinayaa Shamsudiin oo maanta noo gaday dharka ciida iyo taliya Cabdifitaax iyo Ambassador Maxamed Axmed oo America waxaa u mahad celinaynaa ilmaheena oo agoonta ee maanta oo dhar ciid noo gaday. waxaa u mahad celinayaa walaalaheena khayr Allah siiyo Shamsudiin iyo Cabbaas Toon ala America taliya Cabdifitaax kulligiina waa idin duceeyni agoonta waa ka farxiseen saa ugu farxiseen Ilaahay ha idinka farxiyo dharkii ciid gacanta ku haysanaa. Taliya Cabdifitaax Malaaq ayaa sheegay in waajib ay tahay xilligan iyo kale in laga qayb qaato sidii looga farxin lahaa carruurta agoonta ah wuxuuna sidoo kale u mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay ciidsiinta loo sameeyay carruurtani danta yar. bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan Ramadaan Kariim markii xigtay waad u jeedaan sidaad maanta u jeedaan waxaan farxadda la qaybsanaynaa carruurtan yar ee aad u jeedaan agoonta ay muhiim tahay in la qaato farxadda sidaad ogtihiin sanadkii hore waxaan ciidsiinay sidoo kale intaan iyo in la mid ah sanadka waxa ay la soo qayb qaatay agoontan in farxadda la qaybsado waxaa la soo qayb qaatay samafale Ambassador Maxamed Ali Nuur America iyo samafale Shamsudiin Axmed Xuseen oo u soo talgaleen in carruurtan ay maaragtay la ciidaan tirada guud ee carruurta maanta aan ciidsiinay waa 10 wiil iyo 10 gabdhood totalkooda waa 20 kaas waa muhiim in maalinta farxadda la qaybsado dadka dhibaataysan ama duruufaha ay haysato in maaragtay la farxo maaragtay la qaybsado farxadda lagana raayo qof kasta oo mas'uul ah ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan ku baaqaa in laga warhayo dadka walaalaheena ee muslimiinta ee dhibaataysan ee aan awoodin ama inay ciidaan la qaybsan farxadda ciida carruurta dhibaataysan agoonta ama dadka bisha barakeysan ee Ramadaan aan soomi karin in la afuriyo intaba dhammaan waa muhiim inaad nagala soo qayb qaadataan. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Farxaan Salaad warbaahinta qaranka Muqdisho.